dhageystow waxaan kuu soo gudbi doonaa 10 calaamadood oo aad ku garan karto qofka wax jecel. haddii aad tahay qof wax jecel bal dhagta igu hay, waxaan kuu xasuusi doonaa dareemaha kugu jira marka aad dad u gabiyeysid ama u haysatid qofka aad jeceshahay, ama xitaa aad ku matalaysid filimada aad waqtigaasi daawato. waxay ka turjumaanaysaa jaceylka. ma qiyaasi kartaa xusuusta daran ee maskaxdaada ku soo dhacda? waxaad dareemaysaa wax aan caadi ahayn. ma doonaysid xaalad kasta oo kale in aad ka hadasho. waxaan kugu horeeya dareenka jaceylka aad siisay qofka kugu weyn ee qalbigaaga ku jira. dhab ahaantii dadka ku taqlusay miisaanka jaceylka waxay muujiyaan xadka iyo miisaanka jaceyl ee maskaxdaada ku jirta. laakiin ma ogaan karaa ilaa xad aad u baahan tahay qofka aad jeceshahay? waxaa soo gudbi doonaa 10 calaamadood oo cajiib ah oo lagu kala karo qofka wax jecel, rag ahaado ama dumar ha ahaado. 1 xishood joogto ah. 2 naxdin lama filaan ah. 3 dareen gooni ah. 4 sheekada qofka aad u baahan tahay. 5 maskaxdaada oo keliya ka fakarto qofkaasi. 6 maseer iyo shaki badan oo nafsadaada ka dhashta. 7 muuqaalka qofkaas oo aad u baahan tahay. 8 xushmad xad dhaaf oo aad siiso qofkaasi. 9 niyad oo aad kala sheekaysato. 10 muuqaalka qofka oo indhahaaga ka maqan. haddaba calaamadahan iyo kuwa lamid ah haddii aad isku aragto, waxaa tahay ruux dareen jaceyl taabta ee ka fikir keliya sidii aad u raaligelin lahayd nafsadaada. raaligelinta nafsada ayaa keliya ah marka marxaladan la marayo in ay hesho wax ka maqan oo ah riyo u baahan in loo rumeeyo. rumaynta riyadani waxay u baahan tahay karti iyo kalsooni iyo adkeyn in aad ku abuurto marka hore nafsadaada si aysan kaga baqin wax walba oo ka hor yimaada. dhageystow calaamadahan oo 10 aan ku soo baahiyo haddaad isku aragto, waxaad tahay ruux jaceyl taabtay. bal ka fikir qofka aad jeceshahay. Goodbye.